warar soo baxaya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda shabaab ay isaga baxeen deegaanka Ceelbacad oo u dhow soodinta gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. ka bixista al-shabaab ee deegaanka ayaa timid kadib markii dagaal iyo duqeymo xooggan saacadihii la soo dhaafay halkaasi uu ka dhacay. dhulhood ah ayay ciidanka dawladda kula dagaalameen al-shabaab, waxaana taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Maxamed Tahliil Biixi uu sheegay in ciidamada ay ku daba jiraan al-shabaab oo aaday dhinaca Galgaduud. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ciidamada ay isku diyaarinayaan inay la wareegaan deegaanada dhaca Galgaduud sida Galcad iyo Masagawaay. duqeymihii dhacay saacadihii la soo dhaafay ayaa al-shabaab waxay ku qasbeen inay isaga baxaan deegaano badan oo runurgood hoostaga iyo inay aadaan dhinaca Galgaduud. dagaalka Shabeellada Dhexe ka socday ayaa u muuqda inuu ku sii faafay Galgaduud iyada oo ciidamada dawladda ay u muuqdaan in maalinta ka dambaysa inay gaarayaan deegaano hor leh. saraakiisha ciidanka ayaa sidoo kale ku hanjabay inay tagayaan goobaha al-shabaab ay ka joogaan gobolka Galgaduud. dhammaan deegaanadii laga saaray al-shabaab ayaa ah kuwa nabadeed, waxaana dib u soo laabanaya adeegii aasaasiga ah ee deegaanada la xoreeyey. dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa qirtay in looga adkaaday dagaalkii ka socday gobolka Shabeellada Dhexe. kooxda waxay qiratay inaysan jirin degmo ay gobolka ka maamulaan oo ay ugu dambaysay runurgood oo khamiistii laga saaray. in deegaano ay gobolka ka joogaan ayay geesta kala xuseen, balse aysan jirin magaalo ama degmo muhiim ah oo ay gobolka ka haystaan.